markaas waxaan ku dhahay ilka saaxiibka waxaan ku dhahay barfa dudaaye la dilaa dhintay ilaahay ku dhaashay maanta oo faanani adiga warwala iyo marle igii ninka oo dhahniyo wadanka ku cusubtahay hay wadanka juwiisana ma taqaanay barafkani dhibaatadu leeyahay niyo baljoog adiga min jacayl wada tahay ana jacayl hay أنا تمركا أنت من مريكانك باور سيد الله صوت عن قصة برتي كينيا أو أنت برفانك على قصة قادتي ميزير أيام كهست حنا صوب كذا تقانا دولك قرارك سأسكن في عندي استفي إحنا كنا هاي أبو قال لك أنا قاري وضعي النودي صباح هاي قاري نحن مركان برا برا فبلاو الله يسلم الله يست بوليس الدواء هاي حواي إننا شرع لنا تشرع لنا لو قبتي وشرعي قاري لو كحينا ورتيجي ده اللي سينا يا هاي تيجي يا اللي سينا يا وصوت دول لا بري هاي بوليس هو وعلى هاي بوليس مركا وعلى أنا قاري وذي أنت ما باش فدي أنت كعالم ملك هنا فريسي هاي مركان سان محن هاي أتكلم كنا باور كود وتكلم أنا قاعد صبنا هنا وشك طبعا لغتك في عنه على كل حال قصة يقول أن ويدلتها قصة وقت بدنا منه قصة دير وأنا نعرف مركزة لكن تاسع بدك كوتا مرنا عشان على الأذية وهي هي سؤال بدنا كويدين ولا شيء كوساب سنفن كاجا ضد بدنا كوتاجر وحسلين الكعاسة هذه لدينا هدتك كوتاجر واحدة من ليلة ما حد يلدعه ما شعب الصومالية وكوتاجر ولي جعل مرة بإن كلمة هذا مقلام فنكا وكراحة ما حد يلعب شنت الصومالية صومالي وين وحنده لا قبيل قرن مدرسة عاديات ما أنت ضدك فرنسا هولند مريكانك ودم عالمك كود هون مرسم هيروحي جارين ودن كوضي كدقان دلق مالها قار هوذا يا هوذا إننا نسكن بيد مع أنا كهوى معان عاديات عمل هذا الشعب الصومالي وحنده لا قفكي خلدا أنا توسيو ودن كنا هلو تدالو قبيل عاوة كبيل وتنميلها لسكديقو الكعاسة دردارن كيسوا انت تاغيرت الكعاسة حوليه قبيل كمالها لسكديقو عنك هلقات الصومالي ومد قرى وفضل مرك اللي يتقبيل هذا عنك بلوغ هذا يا كتمرك الله شانت الصومالي ويهي إلا انت سيجوه دونتا عاصمة المقدشو وهذا أكسو دونتاي منا نقص على مرة سودكي بحقيقي بطا واجبت حمر سودكتي ما الله مسعتي ويهي هذا ما سنتاي وجيت كفنك أوصوك شيء ما ينا العكشو ما ينا مقعشو ما ينا مسائر مكالا جيرو فنك بحوصوك شيء فنك بحوصوك لي الشعب كالصومالية درتيس أيام صوق علي دلكيجا درتيس أيام صوق علي أو إلهي إيجو أوجي وما أنت قفل بمركو دينتو عمل كيسا أيو لقي يا جودك وهي دينعي سوغانتا ونقنينا مركن هيستا حاجة نعم نيهو هيستا أنصو وضو وأنصو قبن دونا حبلها قارو كعريسين دونتا أقطوغا مدافن درنا نيهو كلا برا إيقا برا دادك أتري هيس كلا مويد أقول لك أبلي يعني أسكول لك ما كل ما قدرها أنا كنت هاديني سي وسعتي هيستا متى وسعتي هرت هيستا dad badan oo igu dhagan waa arkay hay heestan shay ani dhalinyarada hadda wada fadhin Cabdinaasir hay ay wada fadhin markaas daacad oo markuu gurisan ka hadlay daacadan ku hadlay waxa laga hadlay sheekada ahayd gabre gabre waxaa layidhi gabra sana waaye gabra kuus waaye marka gabra waxaan ku dhahay kala baro iga baro dadka aad iyo aad heesta ma ahan mid haweenka ku socoto sama haweenka kuma socoto laakiin mic check marka waxaan leedahay heestan waa mid noocaas ku timid ereyadeediyaas kale ereyada waxaa qoray wiil la yiraahdo wadani wiil wadani oo la yiraahdo abwaan baasha qaran abwaan baasha qaran waxaa la xameeyay fanaanka
boqorka dhaantada oo la yiraahdo xasan gantaal codkuna waa hadee codka ninkan caanka ma la iska wada garay boqorkii raabka way Ilkacase heestan dad badan ku soo wacay kulay oo ku soo weydiinay su'aalo ku saabsan sida tan hadda anigu ku weydiinayo kale ma inaan baas jecleeyeen oo leedahay kala baro iga bar dadka mise dadkaas oo kale maxaa ugu jawaabaysay marka maxaa ku lahayd علشان dadkii xaga qabiil camal ka dhigay heesta horta qabiil maxaa ku faana qabiilkay horta ciyaalka dadkan la soo koray kuwaas aan isku qabiil lahayn meel bay joogaan Puntland xamar meesha noqoto burco ogaadeen everywhere maogtahay marka aniga dadka maanta saaxiibada daa fiiriso kulli hada wallahi oo daacade mid asku qabiilna ma jiro brother hadii daacad laga laaytay laakiin qabiilkan wuxuu noqday calanka buluuga dadka waxa xalin qabiil maxaa ku faanaa marka Soomaaliya ku faanaysa Soomaaliya ku faantaa shanta exactly marka heestan qabiil kuma saabsano laakiin tii maxaa xadiid xajir kullu shay nacmal بالنيات قف الربو قاضايا يديسه aniga damaanta ay samaan u qaadato samaan bay heesta tahay qof haduu xumaan u qaatan kulay dadka heesahaaga adigu wanaag oo la jeedo xumaanta u fasirta waxa la dhahaa Ilkacase leedaha Ilkacase lagu yiraahdo isma bedelayo shacabkayga kama daarayo dalkayga kama daarayo iyo qabiil ku qaadin qabiil يوكو قادم Ilkacase intuu god ka galaayo saan ayuu shacabkiisa iyo dadkiisa ugu doodi doonaa aad way markana waa kala baro iga baro dadka hiya kuma baan gabar yahay bartay badankii qalbigaada ma bogsin karo iyo beentaad ku darisata ay busan ay barin buqaydaka kuma baan gabar yahay bartay badankii qalbigaada ma bogsin karo iyo beentaad ku darisata ay busan ay barin buqaydaka maysadka kuu baray lama baadi kare habaruuran baro iga bar
baro dadka uma bogin iga durug waa bas sida balalayda badboodine caga dhigo farniye caga dhigo inanka bilanba isugayse caga dhigo wabadayde iga badan baro iga baro dadka uma bogin iga durug waa bas sida balalayda badboodine caga dhigo farniye caga dhigo inanka bilanba isugayse caga dhigo wabadayde iga badan waayahay kala baro iga baro dadka waa bes waayahay waxbaa ka dhacay dad badanaa taageerayaal ku ah waxay jecel yihiin mar walba in codkaaga ama heesahaaga ama ereygaaga si un ay ku maqlaan malaayiin waaye caawa kuwa badanaa dalsan dhegaysanaya waxay isleeyihiin qaarkoodna heesaha waxay leeyihiin Ilkacase badi wax micno ma ku fadhiyaan oo erayo unba isku keena sidoo uu yeelaa maxaa leedahay waxa weeye dee qof walba horta waxa weeye qof walba dee fankiisa taariikhtiisa maada ku sugnayd fanki isbedel ayaan ku soo biyey aniga maanta waxaa maanta ku faana haystaa shacabkayga waxaan ugu heliyo ayaan haystaa hadduu qofka heesiisa ee macno qofka hadlaya markaas ka hadlo waa sheekada waxaan leeyahay qofka haddii heesiisa macno aysan ku fadhinin maxaan fanaaniinta uga adeeraa taasna waa su'aal isweydiin mudan taageerayaal badan aan leedahay shaki kuma jiro waxaa waaye markhaati lagu dahay sida hore u sheegnay dhegeystayaal fursad siin doona Ilkacase waxaa soo dhaweyn doona dhegeystaha ugu horeeya nasiibka u yeelan doona inuu kula hadlo su'aal ku weydiiyo waayahay assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ولالكي عبد الناصر السعداء الفنان ودني قالي محمد قيس عبد القادر الكعس قيس بعض فرصمة صاحب هذا حريرينتا أصحاب الفيسبوك مركا دقيستياش دلسان بحن ليا هاي هذي ونكسن هذي ونكسن قفكو بوريي برامج كنصيبك ويا شانقتي مقعاقيشة قلاشي أنا كوم هاد علينا يا ولالكي عبد الناصر مقعي وبشارة أحمد شيخ بالخير وحاجة كسوة يا دقمة كران جوال كبنادر بشارة عاون نصيبك يا كورن كمان دقيستي وملايين قفكي وغوري نقطة عاون نصيبه يا شبرامج كنو كقيب قلب وما صنت هاي عبد الناصر ولالكي وإذا ما هاد علينا يا سيجارنا أنا أقول فرحسن هاي نصيبك يا هبون ومركا إيسور تقلي على سبحانه وتعالى إنا نقول مركا قفك وغوري فنان قرن فنان قالي Ilkacase مركا عاوز سؤالها اللي بلاوي أما صاحبه وغوري إبلها اللي دون إنا قيب قنقلو وأنا إذا كده ما هاد علينا يا سيجارة بعد ورباهين تسعوين دلس الراديو سيجارة ولالكي عبد الناصر عادي صاحبه عاو برامج كان لفكا كالا شقينا يابا هاي أنا أقول لكم هذا علينا ما كان تاجرياش Ilkacase هذا ما صنت ولالكي والله وسؤال مركا عجيب مركا تاجرياش Ilkacase ما كم تامركي اللي يرادو هذا حال كيبو هاي ملايين تكون مركا هذا مركا قبل كان نجي شغل بنادر أن مركا عدكو ذاكو هذا تاجريال بوحة واحد الفنان Ilkacase قيس أنه تاجر ولالكي هي مركا هذا أقوى النادي كويس ودني جاهو مركا أنا وأنا نشأ هاي كبشارة الخير ولم يسمع Ilkacase ولا هذا دونتا ولا سيا ويا دونتا وما تصنع ولالكي والله وكل مجري همي وينو هاي مدام Ilkacase وياي روح Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadlayo ana ahay marka daayirta Soomaaliyeed marka mar uu weydii doontaa meesheen qatada Ilkacase ina marka nasiiba u yeelo doon ina la marka hadda ka hadlana warbaahinta dalsan oo suurtagelisa caaw in Ilkacase aan la hadlani aadan uga mahadcelinaya walaalkay baahdish marka ka shaqeynaysa baahda isku dusoo dabarudo adiga qeyb aad ka tahay haye su'aashaada caaw هذا ما صنعه ولكن والله سؤال شيء ذا بحقيقة مهمسن
la hadlitaanka iyo inaan markaa codkiisa aan maqlo oo si toos barnaamijka oo ila hadlo walaalkay maxamed qays waxaan leeyahay dhiigga marka la hadli doona ee bishaar dhiiggahay waa ujeeda waxay leedahay inaan su-aal weydiiyo waxaa iga muhiimsan in codkiisa maqlo uu ii jawaabo bishaar bilkhayr ما هو حنا بشارة وسورة sheekada caawa bishaara lagu sameeyaa بشارة وسورة ayo bishaara cabdinaasir waa idin hadalinayaa horta sheekadaas oo dhamaystiranay xulkaas walaalkay waa ka sugaynaa inuu markaa noo faahfaahiyo maadaama uu jangalka idaacadda maalmihii ugu dambeeyey saarnaynaya qaybkeeda barnaamijkaas marka ani su-aal koobanaa weydiinayaa inkastoo heesaha faraha badan uu qaado si gaara hees haddii suurtagal ee noqonaysa caawa marka in yar inuu codkiisa uu ku qaado deetana oo markaa farsamayaqaanku uu nooga dalbi doontaan rajeynaya laakiin su-aasha ugu horeyso aan jecelahay xulkaas inaan weydiiyo waxay tahay aad markaa saaxiibada kale horta heesaha iyo meelaha uu kasoo galay iyo waxyaabaha uu daynaya laakiin anigu dhanka sportiskan kasoo maraya maadaama hadaladiisa ugu horeeyay sportiska uu sheegay inuu aad ugu jeclaa markiisii hore سبورت سنتري si wanaagsan marka su-aasha weydiinaa waxay tahay markii yani kubadda cagta laga hadlayo keliya naadiyada markaa ka ciyaaro yurubta ma kala qaadayo naadiga keliya uu ka taageero haddii ay jiraan inuu markaa sportiga halkaa uu dibadda wax uu ka taageero ma horyaalka Premier League ma kan Spain mase Europe oo dhan maasanta haddii yani kala doorasho ay tahay England Premier League aan markaa ka dooranaya horyaalka ciduu ka taageero waayahay su-aashaad waxay tahay in horyaalka Premier League naadigu ka taageero inaad ogaatid si wanaagsan waayahay bishaar aad u mahadsan tahay Ilkacase waa waxa waa laftirkay waa jeclaahina ogaado hay وين دي waxaa ka hadlaynaa tinaan isaga oo dhalinyarada dhahan hadda waa doqomay doqonin ma jirto ma iska sidis banaay waxaan la jiraa taageertaan galo yaa kale la jiraa yaa kale waan isku geeyay waa winga daqana Arsenal dad badan waxay leeyihiin Ilkacase waa jeclaan la inaa ogaano Arsenal laakiin markii la dhahay Arsenal marka oga dilo aan dib aan ka ogaanay markii la Arsenal asal bilad ma taageero تيمك هذا بسم الله مو وين يا تيمك وين كوانا بسم الله أنا ما استاق شعرنا ما سنت أقوم هذا علمي ما بقردة هي أنا ما سنت بقردة كاران بقردة كاران نتا وحوا الكعسة يا كاران اسمه رجعان بشارة عاو لكن نسيب ويا لتقف كبورين نقطة هاي مركعة هيس قاديسو oo lagu keeno heesta ama boon ku keeno ereyada ma ku doorataa laxanka ma ku doorataa muusiga ma ku doorataa heesta ma ku doorataa Ilkacase ahaan heesaha boqolkiiba 80 horta anaa qorto adaa banaankoodi ama heesaha aan badanaa qaado raabka fanaaniinta waxa dheertay ku jirta laakiin abwaani badan heesii qor waa jiraan sida abwaan hurfa cali qayle أبوان باشا قرن أبوان صادق لاب صالح وسيار واشنطن جوجو أبوان محمد أودون لما مسكوا أنت كنت كل سمايان مركا دورشة ما موسيقى دورتها وما واحد دورتها رياضة واحد دورتها لحن كهيست قاب نوعين كجعليسي محل كجعليسي هيست أنا هيست هيست ما كرجع على هاي لكن محقق رجع على هيست ودنيجي لكن هيست وحق دورتها أنيجا waxaan kaloo halkan ka salaamaynaa abwaan cabdirashiid caaqilka iyo boqor cabdimudalib iyo dhammaan heesta waxaan ku doortaa anay miraha haddii ku anfacaan laxankii iyo waxaa waaye inta kale waa israacayna inta kale soo bisaalaa waayahay soomaalida inta badan dhibaatooyin badan ay ku jiraan dalku xaalada adag uu soo maray dhalinyaro badan aa tahriibtay adigu wacyigelin samaysay hees tahriibka qaaday oo runtii aniga kuuka aniga kula hadlaayo kula fadhiya kuuka dadka heestaas aad ku jecel mar walba ma tahriib laakiin way ugu jira laakiin marka heesta dhegeysta dadka heesta ka reebta ku jira ma sha Allah shaqooyinka waajibka ayaa ku mahadcelinaya heestaas sidee kugu dhalatay ma adaa sameeyey ma lagu sameeyey heestaas
waxaan soobiyey abwaan saatiq lab saalax waa abwaanka heesaha sidii aniga heesta qariiraan isla qaadano daadihii qaaday heesa badan anagoo fadhimisaan wada fadhino ayaa la diido soomaalidina wadama nadiida markaa noqdo runtii xaadidan tahay anaga fadhinaa waxaan nahay 400 kooga dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa tahriib ku dhimatay Ilkacase taqaano ninka ku jirna aad taqaano aad ya shanta Soomaalina ku dhaarto oo dhaha 400 kooga dhalinyaro Soomaali ah tahriib ku dhimatay shanta Soomaali ah asubna kula tahay marka waxa waaye arintiisu qaatay mikrofoonka ka dhacay aad ya codkaaga halaasiga ah iyo heesta تنهض تهريب دي بوي تهريبك هلا ديدو صومالي ديدا وانا دايتنا وديدا تهريبك هلا ديدو صومالي ديدا وانا ما نديدا دايتنا وديدا تهريبك هلا ديدو صومالي ديدا وانا ما نديدا دايتنا امغدا عندر دار ما امغدا دلش الشيء مدنبا دلش الشيء مدبا دايرتنا جوجا هادو اللوبين جوجا دلكي هويو جوجا دلش الشيء ومصيبه دايرتنا وديدا تهريبك هلا ديدو صومالاي ديدا وانا ما نديدا دايرتنا وديدا تهريبك هلا ديدو صومالاي ديدا وانا ما نديدا مدناكم ما حدو ديرو منا دون تراعو بطاطا تكراعو ضلك حرتيالي يا دفاعي دونا دقاقيا كريبي وحيدانتنا يغا دايرتنا يغا متكا دادكا دلالو متكا دولار باتو دونيدا سينا عدمو داين كنا وامي دايرتنا وديدا تهريبك هلا ديدو صومالاي ديدا وانا ما نديدا دايرتنا وديدا تهريبك هلا ديدو صومالاي ديدا وانا ما نديدا anigu kollay waan doori diyaaradan raaci xamar cadday dusheeda xeebta liigan ka soo deg da'yarteenna allowda wixii wadaya allowda dumarkeenna allowda ubaxii dalka allowda da'yarteenna udiida tahriibka hala diido soomaalay diida وانا ما نديدا دايرتنا وديدا تهريبك هلا ديدو صومالاي ديدا وانا ما نديدا ولا نقن كانوا غينو دبالو نقن كانوا غينو ولا نقن كانوا غينو دبالو نقن كانوا غينو ولا نقن Ilkacase runtii dhegeystayaal badan fariimaha gaagaaban 4 ku soo hadlaya dhegeystahan wuxuu leeyahay magacaygu waa Caashacuud waxaan joogaa Aymiska Ilkacase aad ayaan u salaamayaa salaam kale iyo laabiga gaarsiin boqorkeyga aad ayaan u taageerayay tiri waxaan weydiin lahaa anigu heesihiisa heestu ugu jecel yahay Ilkacase marka la yiraahdo Ilkacase heesihiisa oo way badan yihiin hal hees oo bartilmaameed waa ama heesihiisa kale أنا ما أدري من إنك استوى إذا جعله لكن حلالها هل هي سرّة والكعس آد وجعلها هنا وقاده هنا وقاده هي سنيقة وحن أوجع على أرته هيسا ودنيقة دور هيسا مدوران كلام سهل هيس بندوران هل هيسوا هل هيسا لذا هل هيسوا بيقدر انتهي
إلى ما كوداش halkee se loogu sawiraya marka هم سيسوي waxaan doortay Soomaali baan haysan ku naflan sareeya sanku dhuudiyo waqtiga iyo ku siray Sayid Abdullah Xasan way hay aad iyo caasho waxaan filayaa inaad ka qanacday dhageysta kale waxa yiri Maxamed Xasan Jabaan ayaa lagu magacaabaa maya Facebook oo ka socda wuxuu joogaa dalka Kenya magaalada Nairobi Ilkacase aad ayaan u taageerayaasha ayaa kamid ah inuu leeyahay heesta Igu Sawir raba inuu ogaado ujeedkeeda way hay jawaabtaas dib u dhigan doonaa qeybaha dambe ee barnaamijkan ka dhigan doonaa dhageysta kale waxa uu yiri assalaamu calaykum aad ayaan u taageeraa Ilkacase magacaygu waa Canab oo joogta Banaadir gaar ahaan waxa tiri Ilkacase waxaan dhihi lahaa way hay asigu muxuu jecel yahay wax uu jecel yahay noloshiisa arrin wax ka ogaado waxa uu jecel duga gartay adduunka waxaan ugu jeclahay waalidiintayda aad iyo aad caankayga shanta Soomaali aad iyo aad familkayga dhamaan saaxiibaday dhamaan saaxiibaday ku wadaniga kuleena wadani ma saaxiibadaha dhinaca commentiska iyo fariimaha ileenka baan ku soo noqon doonaa markiiga waa hadana haya ana Cabdi Naasir marka Cabdi Naasir maxaa ka cabsataa Ilkacase oo aashan oo aan ka cabsadaa naftayda naftaada waxa kala baqato midra dooda waa loo dhahay geesi hooyadiis fuligiis ma gablantay geesi hooyadiisa gablanta aad iyo aad fuligna hooyadiis ma gablanto geesi hooyadiisa gablanta ayaa loo dhahay hadigaanta maxaa ka cabsatay markaas waxay tiri anaa gablami lahaa aad iyo aad sharaxadeeda waa nin baqamiye ما بقدر هدي أنا ما أنت عم بقولها وحيانا قاركم مصوبيان أنا كنا كنا كفر عشانه هدي تي هاي وقولي هدي أنا أنت بنتو أنا كبلوجة أيوة أنا كمان أنت كفاني قدي جاية هدي تاسع كفر عشانه وهي الكعسة براه مشتاقات وهي ستانيه ما قلت تغير بدل الله ده وحين داونا مقال أديقة meelaha ka mid ah magaalada Muqdisho gaar ahaan moolka Muqdisho ku dhex jira oo lugeynay dad badan ay hadana ay ku leeyihiin Ilkacase haye niyo waxa kaaga yaabay xagga tixgelinta muuqaalka aad daawanayay gabadha waxay ku lahayd Ilkacase sawir ma kula geli karaa jawaabta aad bixisa xastaha waa la geli kartaa soo gal meel gudaha oo carwa wargasheen oo sawirkii meesha lagu qaaday wiilal dhalinyaro kala arkay marka meelahaas joogtid maxaa dareemaysay oo dhalinyaradii Soomaaliyeed iyo meel ay joogtaan oo adana ay ku muujinayaan taageerada ay ku qabaan oo sawir ay ka codsanayaan waxaa fanaanka Soomaalida fanaaniinta ma oga boqolkiiba 80 wax yar baa og fanaanka lagu sheegayo shacab ayaa fanaanka dhigay aad iyo aad aan beenahay hadii lagu taageero waxa uma tiid waa sheekada aniga waa dad badan oo soo qoray dhahayo isma dheheen masjidka markay soo diraan Facebook isma dheheen Ilkacase ku soo jawaabay Snapchat ka 1.4 milyan ayaa la socota isma dheheen Ilkacase soo doonta inta waqti hayo aniga Ilkacase waxaan aaminsanahay maanta Ilkacase hadaan maanta heer ka gaaray fanka shanta Soomaali إلهي كذاك شنطة الصومالي أي إجازة. أنا كعلنا هم إنه كردد يعني إسكوي نسين كرماهن وكفانا شنطة الصومالي. من الشعب كيس إسكوي نسين ودنا ما هذا كل شيء. عادي. وهي مقدشة كابل تي في barteena Facebook radio dalsan live ay dhageystayaasheenu naga daawanayaan sidoo kale waan soo dhaweynayaa commentiska hoos ay noogu soo qori karaan muuqaalka halka ay ka daawanayaan sidoo kale si share garay muuqaalkan si asxaabtaada kale oo u gaaro barnaamijkana ay u daawadaan wana ku mahadcelinayna qaabka wacan dhageystayaasheenu ay nala socdaan gaar ahaan taageerayaasha Ilkacase radio dalsan Muqdisho cable dhammaantood waan soo dhaweynaynaa Ilkacase mar walbo oo asbaho waxa weydii su'aalihii baa xataa laftirkeygu ka farbatay waxa waaye dhegeystayaal badan oo su'aalo ii soo diray laftirkoodu leh bal noo weydiiyaan ogaan Ilkacase xaas muu leeyahay qof soo qoray ma leeyahay Ilkacase aniga reer waan leeyahay
الحمد لله maxaa udu ku jooga saddex wiil baa jooga alxamdulillah masha Allah waxaa la kala dhahaa saajid saahin iyo saarim saajid waxa wala dhahaa heesaa qaar saajid iyo xabaartaay aad ayay dadka badan waxa dhan magacadan inta ka keentay waa soo xadaan ku dhacay ayay da'yar badan oo jecel in fanka magaca ah samaysay oo kale inay sameeyaan dadaal badan ku jira fanka ku jira kuwan ku jira maad kadib jecel inay soo galaan maxaa dhihi lahayd ayaga hadal dhalinyarada Soomaaliyeed oo fanka inay soo galaan jecel magacaad samaysay rabo inay sameeyaan waxaan dhihi lahaa ilaahay baan ku dhaashay haddii aad fanka u soo gelaysaan inaad dumar ku shukaansataan ama aad u soo gelaysaan inaad camal goboleedaada ugu haystaan ama qabiil dartii u soo gelaysaan ama magaca inaad ku yeelataan u soo gelaysaan ilaahay fankaa kaa madoobeeyo laakiin haddaad u soo gelayso dalkaada iyo dadkaada ilaahay ha kuu fududeeyo waayahay waxaad noo sheegtaa Ilkacase fanaan weynaa tahay oo dad badan ay taageeraan waxaad aadaa safaro meelo kala duwan wadamada caalamka meelaha aad aadayso fanaaniinta ku nool fanaaniinta qaarkood laga yaabaa inay isku wanaagsaneen qaarkood isku wanaagsantihiin badi marka ka waran xiriirka u dhaxay meelaha tagayso ma fanaaniina ku tashataa marka meel aadi sidoo kale ma inaad fanaaniin sii balansato ma inaad dad kala caadi asxaab kala si ku aadaa meesha muqdisho kale markaa soo aadaysay ma fanaaniin ma dowlad ma sidee ku aadaa meesha aadaysid qorshaha u aadaysid markaa rabtid inaad fanaan show arabtaa inaad ka qabatid tusaale hadda muqdisho markaa soo aadaysay ma qof caadi oo ganacsada ah ma qof fanaan ah ma qof dowlad ah see ku timid hadda mise meel walba tegaysa ku tagtaa qorshahaaga muxuu yahay ku tegaysa aniga horta runarta mise been runarwa فنان صاحب ولا ما يبي فنان انت صاحب من البلد اسبوع ما قرا محل فنان ده صاحب النقطة رأيي سيسكو ده أنا كوبا ورا أنا من عن جاهي أنا بروح رأيي وأنا جاي ضد الشعب كذلك أنا صوبي muqdisho waxa ku qabatay show laga yaabo meelo kale hata ku qabatay sida Nairobi iyo meelo kale badan Sweden muqdisho show laga yaabo ku qabatay taageero badan showdii muqdisho ugu saameynta badan kii ugu horeeyay dhihi karnaa ka waran ka showgaas markaa qabatay waxa dareentay iyo dadka ku yimid caasimadii dalkaaga adigoo jooga showgiyaa qabato taageerayaashaada iyo intaas laga aragto ka waran bal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaa weeye meel show lagu qabto show wadani meel lagu qabto waxa ugu fiican xamar aniga hadda ka hor waxaa jira kilib yaro laga duubay oo iga duubeen dhalinyaro wadani aad iyo aad oo magacoodii dasar كلبكي أسوأ على محنية وحن فنانين شنطة الصومالية وباقية أنا حمري ماذا إلى أمريكا يرقش عادي ما كان فنان بين هذا فنانين بدنا اعتمد طبعاً كوميا عادي إنا كسي بدينا أقول كوا هرو يمد كوا قباشة يمد مركب مقالك أصلا فنانين عادي وحاول مقصورة مركب والحمر عدنا شدنا مركب عادي وهي هاي إسكا إيه قوارده ويقع heesaha cusub ka mid tahay ma danta asaas dhegeysan badan aad dareerayeen inay maqlaan oo barnaamijka ma hadda garaneen gobol kale inuu dhacay waxa waa aflaanka qorinta ana yaa qoray cabdirasaaq bulqaasal yiraahdaa ereyada laxanka yaa saaray marka boqor cabdimudalib oo Nairobi jooga muusigana waxaa saaray cabdicaziiz alcazal oo xamar jooga alxamar waaye الحمر واحد حوا اسكي قارد حمر كشدنتها وحوا حمر كعسنتها سما لا حمر شدنتها برا واي هي اسكي قارد دي جي بوي اي مرك هذا الكون مفولي هذا الكون مفولين جعل ما قداد
ruux garaadku maqan yahay weligayumaan gudin garka hadalka uma furin jacayl lama gardaadin ruux garaadku maqan yahay goob libaaxu degan yahay guri marana moodine gaagaasoyna yahay cashaqana ha u gafin libaaxu degan yahay guri marana moodine gaagaasoyna yahay cashaqana ha u gafin mar haddaadan garanay gabalkaba inuu dhacay mar haddaadan garanay gabalkaba inuu dhacay naftan way ku goyse iska eega waarida mar haddaadan garanay gabalkaba inuu dhacay mar haddaadan garanay gabalkaba inuu dhacay naftan way ku goyse iska eega waarida dumar qaar dhaqankii ka guuro garaashadu irmaanay sheekaba kamaan guro dhacay Ilkacase bal heestan maxaa ula jeeday ma qofa in jacayl lagu dhumiyay leeyahay waa ka tagay gaaradiiska anigu waa ka tagay gaaradii ku dilmiya sheekada abwan Abdulsaaq Bulqas inuu duminay heesta anigu baa ka ayay marka wuxuu ma hadaan garanin gabal kale oo dhacay wala xubno marka waa iska saxta dadka qaar siyaasadda oo fasirtay marka waxaan ugu salaamayaa abwan Abdulsaaq Bulqas waxaan ka salaamayaa AJ events boqor Musa هنا داري وعاكر لكم كالسلام يا دي جي مداري وانت من جودي جمبرات وانا ما شاء الله وانا من الدنيا هذا هو بحثان الكوتي ادي ادوسنا يا الحمد لله باسنا سلام هاي الكعسو فيسبوك استعماشا فنان مقع لها تهي صح marka ilkaas raadiyo boqol ilkaas ay soo baxayso way xadeen bisee ku garagara marka dad asxaab badan ku wareersan qaar kooda laga yaaba in dhaqana adil lahayn loogula dhaqmo sidii lagu hadlo bal see ku garan karaan facebookaga saxda ah facebookaga saxda ah waxa lagu garan karaa qofkii facebookaga saxda haysto waxaan leeyahay boorkada carooga live soo galariyaa هذا مش رئيسه كوا سيارة كل دورة لو استعمالها ده حلقة بقى إنه عرض أنا واستعمالها فيسبوك كوا حلقة إنه وناب واستعمالها نفتر كوا وناب استعمالها أجرينها محل هذا مكة قلت كوا وناب استعمالها أدري أدري صنعها كوا حمرات سكنة وأدي يمكن الكعسة لها أديات الكعسة أيها لها يعني أنا بعلن كره قدم كل شيء حاول بقولك راك متجمع كتب كرر ولا صار هذه ما أنت قفك أوله أنا ما أنت سؤالك عزمنا هذا ما أنت أنا أسكت دهينا أنت تسكت ديره وحنا الدنيا لا تجايا هذه تنصب بينهم ممكن قد قالوا عمل كي جانا جلايا سفي عليه أصيع ما أنت أوله عمل كي سوق ما جلايا أنا ما كم عيتها أجري أجري حسنات هاي gooya goobta geeya suugaantaada waxay ka mid tahay aadka loo jecel yahay rag badan oo dhalinyaro ah dadka ku taageera 75% Soomaalidu waa dhalinyaro dadka ku taageerana waa dhalinyaro dhalinyarada maxaad leedahay dhalinyarada Soomaali waa mustaqbalka dalka waa
كل نحن نقول لها كل عبد الناصر ما عمل نقول لها ولي نقول لها هذه تكون الكعسة عمل فناك نقول لها كل فيسبوك قصة أشياء الكعسة عمل مركو حنايا محد اسكو دايدان إن أت سومالي اسكو كنتان وحد اسكو دايدان إن أت فنانين تا صحيصو ملحظة إني صحظة إن أت مارتي أت وقراتان كنا تاجرسان مارتي أت تاجرتان محريري ما أنت بحاجة حارت مرة أنا كهالله كل يوم إنا يديني شو أقعي بس كيف سجني ذاتاس دانجرة الصومالي أنا كوي يجرب أنا يجرب ومستقبل ضلك ضدك بدل الله ما راح فنانين تي شعب كعالي نقنايان جمهورية نقنايان مركا قبيلك قبيلك وحنون نقضي بعد عذرك اللي على كانسر أديات قبيل كانت ما قرناي أديات أنا بكاظم ما قرنيست لكن أنا أظن ما تقولي ما قبيل كان حمر صومالي نمو عيال حمر واجي من هستا ولا يدرين وحلي جرنا هستا يا تاي من السديجرين شنو حاجة كلمات هي ما تهاي يا برنيجلي ما تهاي برنيجلي برميل يا عبد العزيز ما تهاي كارام ديميلر daawadayaasheena iyo dhegeystayaasheenu waxaan u sheegaynaa muqdisho cable tv iyo sidoo kale nagala socda barteena facebook ee radio dalsan in goordhow sheeko xiiso badan oo ay wada sugayaan igu sawir ayaan soo wada laakiin gooya way markaan أنا محمد أنا الشعب ضخ هذا مظهرة فيسبوك أنت أقول فلان مظهرة أدي لي كرواية لكن أدي لي كرواية إسكندر ولا لي كرا كله أستي بقر كرابك بقر كرابك ما تهاي شعب الصومالي farsamaqaanka ka dalbaya oo goordhow loo soo qaban doona suugaantaas oo intii kamida suugaanta keedka baaxada weyn ee dalsan loogu jira waa soo qaban doonaa sheekada igu sawirna diba u dhiganaya dhageystayaal badan ah waxa Cabdiraas waxay leeyihiin sheekadan ma xad ugu dhigaysaa qaybaha danbaan rabaa in sida ku bilaabatay iyo sida ay tahay maadaama ay sinta BBC كذا BBC فيسبوك أنت أي خصوصية بس الميديا ما دام يكون ما يدرسي وحال أركيا من با أنتو موبايل سوقاتو دمر خصوصي دمرني ها يقصير وأشياء كذا من دمر حب أصلا سمع وأنا أركي أنت سوي أركي شيء كويك يقصور سوي كيف كل غياب بدنا الكعسور اوكي ما يشيء كالكاسة كيف كده اي كيف كده والله يا بلا شيء كده ميت كده ميت قبل بحجف لا صونا القبر يدعك القبر بيع يصور وجه كده صور كده وين ده بالله وصور ما يقدر يدير بالي راس افريقيا ما له يدير قربان في يصور معك واي هاي واسكو صور قندنا باي هاي goya kuliga geed gudubkii dhasho ma barina kulligiina suuqa geeya goya goobta geeya goya guriga geeya kala gudoonkii dhasho goya suuqa geeya goya goobta geeya goya guriga geeya kala gudoonkii dhasho ma barida kulligiina horta hore taageerahayga kulli horta hore qays weeyo badmaceeyo weeye xaaladayda bariga dhexe un wey bale ma jirto jirta ma joogte mana maqlin way xijaabante حاسد باجرة تاسنا اوكي وي قفل باقبة تاسنا اوكي وي قبلهنا رونتي قاري وي رونتي إدا دقنكي رونتي كما تقانو أفريكو دان كوبكي قروح دقادين أفريكو دان كوبكي إذا تقادين أني وانقيري رونتي وانقيري دي أدون كان غير رونتي وقيري دي قصل كودا كلي دهم مسيستين وهذا الكودا كلي مليان مسيستين حرق دا دي لا في هودا دي بل تيما هودا دي دير الكودا دي بل محقودا دي تاكوي دي بل أفكم بدو دي سنة يا شدي قروح لي مقل قلبي أي مقلو وقشوع نفط ويقشوع دي قربة طاهر قريش
fresh ayaa tahay qiimo badan ay arjigayga qaad gooya gooya suuqa geeya gooya gooya goobta geeya gooya gooya guriga geeya kala gudoonkii deesha weeye gooya gooya suuqa geeya gooya gooya goobta geeya gooya gooya guriga geeya kala gudoonkii ilkaasi markaan gabagabaa joognaa barnaamijkan soo gabagabaysan doonaa biima cabbi karaa dhegeystayaal badan aad iyo u danaynayaa sheekada markan aan soo wado waxaad naga daawanaysaan muqdisho cable t v barteena facebook ee radio dalsan iyo sidoo kale waxaad naga maqli kartaan mawjadaha kala duwan ee dalsan sheekadana leeyahay igu sawir halka ay kasoo bilaabatay halka ay ku socoto dhegeystayaal badan aad danaynaya dada waxay leeyihiin hadalhaynta baraha bulshada ma sax ah ma arrin kalaa jirta Ilkacase balcaawa hanaga dabageeya dalsan uu joogaa maxamed xasan jabaan iyo dhegeystayaal badan oo malaayiin su'aashaas aad noo soo weydiinayay dhegeystayaasheenu aad ay u danaynayeen haye bal sheekadaas naga dabageeya bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo ah maxamed qays Ilkacase waxaan ka heesay sanka duudu shacabkaygana uu heeliyey aad iyo aad South African ka heesay South Africa iyo maqal shacabkaygana uu heeliyey waxaan ka heesay tahriibka aad iyo aad shacabkaygana uu heeliyey aad iyo aad badda iyo dahabka in la dhacayo ayaan ka heesay shacabkaygana uu heeliyey dowlado badan oo dowladda ka horeysay ayaan heeso aan ku toosinayo u qaaday oo dhaliil iyo amaanba intaba isku qaatay xasan sheekh markuu soo galay heesii aan u qaaday ee ammaanta habanaya aad iyo aad heesii aan ku dhaliilayna waan haynaa dowladda maanta jirta ee shanta Soomaali markii ay soo galaysay doorashadii ama kambeenkii ilaahay baan kugu dhaarshay daacad baa tahay ilaahay baad ka cabsanaysaa qof biniaadanka ma cabsanaysa waxaad ii sheegtaa hal fannaan waa hal fannaan oo Soomaaliyeed sheekada dhabta gaaraysaa wixii horta kaftani baashaal beed hal fannaan oo waxaa ii sheegtaa kambeenka igula jiray ama kambeenkii farmaajo ku jiray hal fannaan ii sheeg فنانين هل فنان او فيسبوك لايف سو غلا يشيك هل فنان او فرماجه ama shanta Soomaaliyeed ku taageeray oo kambeynkiisa ka qayb qaatay يشيك hal fannaan oo xaaladda Soomaaliya ka jirta ka hadlay يشيك fanaanka kaliya arrimahaas hal fannaan oo shacabka Soomaaliyeed hees u wiiliyay يشيك oo caane astaghfirullah fartuun umar dib aan noqono South Africa hees bay ka qaatay aad iyo aad heesa badan oo waxaa jira kuwa wadaniya oo la qaadi laakiin dowladdan hadda dhisan waxaa jirta fanaaniintii runtii u ololeynay madaxweynaha hadda talada haya maxamed cabdilaahi farmaajo nacam dowladdan hadda jirto nafteedana hore hadda ku sheegaya walaalkii cabdinaasir aad iyo aad dowladdan ma oga aniga camal oo wadani ayaa xaniyihiisa ku soo saaray ma garat oo taageerayaashaada iyo dadka asxaabta ala tahay aad ku dhiirigelisay in kambeenka ay qayb ka qaataan waxaa weeye farmaajo iyo dowladda qof laga xiga ma laha waayahay somaha aan ku dhamaystira walaalkayga markii farmaajo saa loo doortay fannaan walba dhexda soo xirtay oo heesa badana loo qaaday maha brother dhaba qaara dhulka isla dhacay brother hoogaya baaye ayaa bilaabay heesu ma qaadan aniga heesii aan qaadan ma soo daani hataa magarad heesayga dib baan u dhigay waxaan dhahay maanta aniga guushi aan raba waa gaare aad iyo aad oo qofkii aad lahayd aniga wasiiriga dalka u baahan yahay madaxweyne noqday meeshii aniga aan heesi lahayn fanaaniinta kaleeta ayaa dhaxay soo xirtay aad iyo aad markaan aan qaatay brother wajiib nin guuleystanahay aad iyo aad waan imaaday ujeedkaagu waa gaartay listen dadka qurbaha jooga ayaga xamar ma joogaan puntland ma joogaan khartoum state ma joogaan jubbaland ma joogaan waxay joogaan qurbahay joogaan wax
xaaladda maanta jirto miidiyada ha kala socdaan aad iyo aad samaana u arkaan wax miidiyada maanta lasoo gelinayo laakiin xaaladda taagan maanta ma jeedaan aniga maanta haddaan anu madaxweynahaaga haddaan maanta sawir kula galo wadaniga weyn maxamed aan sawir la galo maxamed cajiib haddaan sawir la galo oo qof walba oo soomaaliya aan sawir la galo oo aan u ballan qaado in aan wax u qabto aan waxbana u qabanin aad iyo aad in adeer ma wax laga hadlaa in laga hadla maa oo marka heesta waxay tahay waxay ku socotaa heesta shalaysa aniga heesti farmaajo horta sheekan ku hayaa waqti badan nagnaa malaya aad iyo aad ha waqtigaas shanta soomaali inta aniga wareerinaysaa aad iyo aad baan idin salaamayaa shanta soomaali meel baa joogtaan oo idin jeeda waxaan waxay baan ka hadlaynaa fanaanka waa adduunka dhan fanaanka fanaan walbo dowladdiisa kuwa wax ku toosiyaa jiro aad iyo aad oo mararka qaar laylaha la sheego la sheega haa shalay markaan aniga dowladda xasan sheekh aan dhaliilay wadani dhalay waa lilahaa libaax laba maa lilahaa marka ujeedka heestan waxay tahay waxyaabahaas leedahay dowladda ku dhalisan tahay darteeda loo sameeyey oo loo soo qaaday soo ma exactly heestan waxaan u suubiyey dowladda dadku way kala daran yihiin dadku way kala daran yihiin gabadha faa'iisa la dhaho oo xilligaha ah ciidanka militariga ka tirsaneed curyaanka ku noqotay aniga ka soo noqonaysa ma ka sheekeyn karo marka gabadhaas markaan ka sheekeeya caloosha xanuunta aad iyo aad waxay ka ballan qaadeen inay qaadaan waxba lamaha dowlad waaye gabadhaas marka in loo qaado waxba lama aha laakiin markuu ilaah yiraahdo ayaa gabadha la qaadaya ma garat waayahay marka waxay ku timid gabadhaas ayada waa la kala daran yahan ku dhahay meeshan qorshayaara inay cunug ku qabato iyada tarq la dheelaysaa brada iyadka atarq la dheelaysaa aad u mahadsantahay Ilkacase oo ku mahad celinaynaa sida wacana dhageystayaasheena aad ugu sharaxday heestan igu sawir oo dad badan dowladda ku toosinayna waayahay aad u mahadsantahay ugu dambeyn marka inta aan soo gabagabeyn hadal aan ku siin waxaan jeclahay qayb ka mid ah heesta inaan wada dhageysano waayahay Ilkacase gabagabaan joognaa hadalkaaga ugu dambeeya ee taageerayaashada malaayiinta ah kuwa waxay naga daawanayaan Muqdisho Cable TV kuwa barteena Facebook radio dalsan naga daawanayaan kuwa mawjadaha kala duwan ee dalsan naga dhageysanayaan maxaa dhihi lahayd hadalkaaga ugu dambeeya soo koob waqtigana aad u nooga dhamaaday dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba joogtaan isku duubnaada danta dalka u dadaala shacabka Soomaaliyeed idinka ayaa maanta wixii dhibaataysan caawin karo iscaawiya ilaahay ka cabsada qabiilka iska dhaafa waayahay aad u mahadsantahay waa ku mahad celinaynaa qaabku cali barnaamijka aad nagala qayb qaadatay dhageystayaal badan ayaa fariimaha gaaban 434 ku soo hadlaya waxaa ka mid ah dhageyste lagu magacaabo Muqtaar oo jooga warta nabadda Ilkacase aad ayaa u salaamaya waa wadin dhab ah noolo ayaa leeyahay uu mahadsan yahay dhageyste kale lagu magacaabo Qadaro oo joogta waa bari waxay leedahay Cabdinaasir Ilkacase aad ayaan idin salaamaya anigu waxaan leeyahay fanaanku waa fanaan weyn aad ayaan u taageeraa waxaan jeclahay inaan ogaado heesta Igu Sawir هو ففهيه فنانك هذا ما سنتر كم هذا علمي نادي جستك الوحوش سوقري magacaygu waa Caaisho waxaan joogaa waa bari Ilkacase fanka rajada ka sii qaba ku sii jiri doona mise dhawaan ayuu ka bixi doonaa ay leedahay fanka ma sii muddo ku sii jiri doontaa ma sida ugu dhaqsiya badan ka tanasuli doontaa lagu weydiinaa dadaan ogahay ilaa albaab ka saaro fanka ma baahay waa aad ma santahay dhageysta kale waxa uu soo qoray magacaygu waa Anisa Laki waxaan ku suganahay degmada Boondheere oo hadda idaacadu ay
toos dhegeystayaashu ugala socdaan muqdisho cable TV iyo sidoo kale waxaa naga daawanaysaan barteena Facebook ee Radio Dalsan waxay tiri anigu Ilkacase aad ayaa u taageeraa heesaha raabka waxaan leeyahay Ilkacase nolow si wata heesaha wadaniga iyo sidoo kale waxay tiri heesaha jacaylka iyo inta badan heesaha aad ayaa u taageeraa wax su'aal ma ku qabo laakiin in fariinteeda hadii ay soo gasho la akhriyo aad maqasho aad ugu farxaa ay tiri ayahay waa mahadsantahay walaashay waa ku mahadcelinayna anisa iyo la yiraahdaa Bondera iyo joogtay dhageysta kale waxa la yiraahdaa Mukhtaar waxa uu ka soo hadlaya degmada Dharkeley ee gobolka Banaadir wuxuu leeyahay Ilkacase salaan kal iyo laab iga gaarsiin marka hore حقول جوا عاون أنا أصلا كل جوا ها مختار يجي وصور مشاكل نوتين هذا نوتين عليه هاي أهلا وسلام Ilkacase وأنا تاجرة حلي هاي فنك وادنو ليسي مجا عيادنا سميسي ما شاء الله سيدا كوسي سؤال كله هاي هاي ومحسنت هاي وكم هاد علنا دقيستك أفر سدح أفر دقيستك كوسو هذا وحلي هاي Ilkacase أنا بحاول يدينها محن عبي هاي Ilkacase maxaa nacabtaa lagu leeyahay maxaa nacabtaa badan weydii qofka weydii dhageysta magaciisa ma soo qorin laakiin wuxuu leeyahay Ilkacase waxa weydiin lahaa muxuu nacab yahay kaliya soo qoray waxaan nacabahay wixii shanta Soomaali nacab farto aan nacabahay aad iyo aad shanta Soomaali daan nacabtahay Ilkacase wuxuu nacab yahay ku tashanaya waa ku tashanaya waa aad u maasantahay dhageysta kale waxaa lagu magacaabaa nasteexanalka waxay joogtaa degmada Shibis Ilkacase cunto la cuno muxuu jecel yahay intee joogtaa Shibis cunto si loo garan nasteexanalka lahaa nasteexanalka cunto la cuno muxuu jecel yahay ودكعة يقعد كعادة جعشاي هاي أنا ما تصدق كل ما تعلني وصل فقط ما صنت هاي مستيحة وفيليا إنسى أشياء وديسي Ilkacase جوابته كبحيي تقن عليه دقيستي الله راح يفرنا كسو هليا وحاكم ذا دقيستي لقوم مقعاو شمسو وجوبتا دقمدا يارشد قارهان جيرا الطوبة يتري أني وحنده لها Ilkacase أسيقو فانكا قرمو سوغلا سنتكو سوغلا جعلها هنا أقادي تري لغدا كوني شنطة هاي آبا ما سنتهاي دقيستك لو حويري مقعيقوا محمد موسى محمد علي وحن جواد دقمدا مهداي Ilkacase وان تاغير سنة هاي وحان كهري هيسي سوديني وكيلي يسوقري وما سنتهاي كون هالعلنا قاكو على برامج كاء لغلقي قارتي دقيستك لفرينتا قابنكو سألو حولي هاي السلام عليكم مقعيقوا سميرة عمر دقمدوا بوندير إيباح Ilkacase waa salaam ilaahay way hay waxa markan telefoonka ku jira musharax qoray ugu soo tartamay madaxtinimada dalka ambassador Maxamed Cali Nuur Ameeriko marna soo Cali Nuur Ameeriko safiirkii Soomaaliya ee dalka Kenya ambassador min qasha ambassador caawa idaacada Dalsan iyo Muqdisho Cable TV barnaamij toos kaga baxaya oo Ilkacase oo marti ku yahay bal soo dhaw aragtidaada waa islaamiya adiga Ilkacase waa islaamiya waa xamar cadde xamar baanahay Ilkacase waa salaamada saxd waa ka qaaday Ilkacase aad baan ku salaamayaa anigana waan ku taageersanahay taageerada dadka ugu horeeyana soo moogid ما شاء الله ما كنت هاي حمد عدي وحشة سوية أنا حمد بان هاي قبل المنطقة الله ورنتيس عالمك بلوغ الساس وضع عالمك بلوغ أنا كنت هاي أنا أمباسدور تاجرين Ilkacase ما كنت جرتا ما شاء الله تاجرتنا وسعدت إلا أنت تاجرين سيسا ما هسا وجه عشرة أمباسدور من شيء جرتا انت وجهت وحاول انت يا حمر ويا حمر أمباسدور wax su'aal oo fanaanka Ilkacase caawad weydiinaysa ma jirtaa فنانك وسلامية إن شاء الله تعالى حمر وماندورا marka maadro waxaan jeclahay kuwano asbaayado وتاجرتنا هاي وشكرا وتمشي إن شاء الله waayahay aad ayaa umahadsantahay ambassador boqorka xamar waa salaamaya boqorka xamar waayahay yaa hees ma dalban kartaa ambassador heesihiisa ka mid ah fanaanka
كله جايين وشالعين حاجات دربنا يا الحمد عاشوا يا الحمد أجي قبل بديني من أجي بس أنا ما سنتين أجي أدون سلامنا waxaan halkan ka salaamayaa ani loobay wiilka adeerka dhalay cabdi dhiiran maasta ana soma si fiican aad iyo waxa waaye dadka والحمر يشيس أبوه يشيس الحمر مسكين كله يشيس ذاك يا امباسطور كان مركله waxaan ugu celinayna haashooy iyo alxamarana faqdad man qanciya ودي يجيبها راسه عدو جبيه ارترع عاشور يا الحمرانا أرض المقام يا الحمرانا ما بالمنقر يا الحمرانا علنك كفانا يا الحمرانا عاشور يا الحمرانا أرض المقام يا الحمرانا ما بالمنقر يا الحمرانا علنك كفانا يا الحمرانا هبد ما دوقات يا الحمرانا حتى الرمل لا غيرن كي قدرك علنك بلود عمه غير ترى عوالي عدو جبيه غير ترى عانكيغا عالمك وشيء حمر والنبط حتى ليدانكو عوينا علماء دينك الله نادى عاشوا يا الحمرانا أرض مقام يا الحمرانا ما بالمنقر يا الحمرانا عالمك كفانا يا الحمرانا عاشوا يا الحمرانا أرض مقام يا الحمرانا ما بالمنقر يا الحمرانا عالمك كفانا يا الحمرانا عيال على اللي سلنت أوجي عيال حمر سلنت أوجي وداني قدرت سلنت أوجي عيدك حوجه سلنت أوجي دلش الشيء ولا وان صنعي عيد هوي ولا وان حيسي حمر عدي هوي وان حيسي عيال حمر هوي وان حيسي أنا على ستو حمر أنت بتاعو قبل هنا شرب كنوتومي ضرورة عسكي هوتي حلوه برغاني إلا باردي عشق روحي قلبي إنا أدير مقبقبينا عاوة ما أقل قلنا عاوة ميدان عاشقي حمر بكل شهي عاشق يا الحمرانا أغضب مقام يا الحمرانا ما بالمنقر يا الحمرانا علنك كفانا يا الحمرانا عاشق يا الحمرانا أغضب مقام يا الحمرانا ما بالمنقر يا الحمرانا علنك كفانا يا الحمرانا waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale kaameramanada muqdisho cable tv oo suura gelinaya waayahay muuqaalkan quruxda badan inaad daawataan taabagelinaya xagga kaamirada koowaad iyo labaad waxaa ka hagaajinaya cabdiqaadir iska iyo sidoo kale j dhaarsane xagga farsamada tv-ga waa qadar sidoo kale idaacadduna waxaa farsameynaya maxamed cabdilaahi boy anigu waa cabdinaasir barnaamijka idinla socodsiinaya ilka casane caawahe uuna la jooga waa ku mahadcelinayna dhegeystayaal dhowr ah xitaa dibadda laga soo hadlaya oo dhegeystayaashu ay leeyihiin oo live noo daawanaya ilkacase inaan su-aalo badan weydiinaa jecel lahaa qof walba wuxuu leeyahay marle ilkacase ma ii suura gasho inaan la hadlo waayahay dhegeystayaasheedu laba qof camal saddex qof masalaami karaa waqti badan mayna ogahay aad iyo aad waxaan halkan ka salaamayaa wadamiga ku dhaartay dadkiisa iyo dalkiisa mudane boqor maxamed cajiib iyo boqor xasan geesey ayaan aad iyo aad u salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa cabdiqani oo jooga manajerna ka ah hoteelka banaadir iyo waxaan halkan ka salaamayaa hoyoluul boqorada xamar waxaan kaloo halkan ka salaamayaa fanaanida shanta soomaaliyeed aad mahadsantahay maxamed cilmi aad iyo aad baan salaamaya nadir waayahay anaguna dhammaan asxaabta kule waa asxaabteena waa salaameynaa waana mahadcelinaynaa dhegeystayaasheenu kuwa ugu dambeeya hal iyo laba dhegeystayaashaan siin doonaa kadib barnaamijkaan soo gabagabaysan doonaa assalaamu calaykum aamino tusmo oo joogta degmada wadajir aad ayaan u salaamayaa ilkacase qays waxaan leeyahay taageerayaashiisu aadka ayaan ku jira aad u taageera salaan kale laabiga gaarsi ayay leedahay heesihiisuna aad baa u jeclahay hees markuu ilkaas soo qaadayo muddo intee ayay ku qaadataa in heesta uu soo saaro waxay ku xiran tahay xanaaqo
sidaan u xanaaqo ku xiran tahay heesta waayahay heesta u xifdisid sidaad iga xanaajisa ku xiran tahay heesta dee markay kusoo jiidid hore waxaa waaye waa kaa xanaaj waayahay mas-uuliyiina saa hore kugu sheegay Ilkacase oo daneynaya barnaamijka inay ka qayb galaan oo waxay weydiiyaan gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Antooba telefoonka ku jira Antooba gudoomiyaha maqashaa waayahay gudoomiye waa ku mahad celinayna qaabku can ee barnaamijka gudoomiye aad nagala qayb galayso bal nin dhalinyaraad tahay taageerayaasha Ilkacase ma ku jirtaa taageerayaasha Ilkacase oo ugu horeeya ku jira waliba sababta hore show soo ku qabanay Nairobi waa xasta ka qayb galay fanaanka aad u taageeraa quruxda badan waliba heesta isma saarna heesta cashoy aad uga heesta cashoy gudoomiye baan ku salaamayaa gudoomiye ma jirtaa wax su'aal oo weydiinayso fanaanka ما يحلي مجالات كسودو مجالاتي وقت سيعان قادو هذا كسرادة إن شاء الله waayahay gudoomiyaha degmada Hodan Antooba aad iyo ugu mahad celinayna dhageystayaasha fariimaha ku laabanaya 434 ku soo hadlaya waxa kamid ah dhageystahan lagu magacaabo Saacid oo jooga degmada Xamar Jajab Ilkacase waxa uu weydiin lahaa ciyaarta kubadda cagta ma dhilaasigu ma ciyaara kubadda Maradona iqeeliyay armay iga sheegtay Ilkacase oo marka kubadda garoonka la tago ma iska lagu isku dhufataa ma wallahi marka mareykanka diyaaradan ku ray ma cadana weydii maanta mareykanka ma garto harta aan noqdo markaas aan raxaan inaan noqdo ciyaaryahan kubadda cagta daacadana iga had iskuulka high schoolka ayaan u dheeri jiray by the way dad badan ma sheegay weydiinaa waxbarashada heerkay gaartay aniga waxaan ka soo qalinjibiyey iskuulka ugu caansan uguna da'weyn Mareykanka waxaa la yiraahdaa Hartford Public High School iskuulkaas ka waa second the oldest school in the nation of Mareykanka oo USA heerkaaga waxbarashada sare halkaas ku qaadatay waxaan soo qaatay 2 years oo engineer computer kan ku horyaala inaan ku furfuran rabto ilaa niyo waxa xirfad kale leeyahay dadku ma ogtay waa aad ma santaa dadka qaarna بعين رواية فنان والبنا فنانين بقول لكم ما يجري حكاية مثل ما تقنا إلى بلود لي الوقت هذه أدب عرض ضدك بالباوي وحنا لا يدبين هدف فنان لا يدبين هدف أنا أقوم بهذا من عصرين لكن أنا بلون له شيء هذا كله مهد عليا Ilkacase waxaan kaga mahad celinayaa waqtiga qaaliga inaad nagala qayb gasho barnaamijkan toos dhageystayaashu ay u daawanayeen Muqdisho Cable TV Facebook Live Radio Dalsan Ilkacase ku mahadsantahay waqtigaaga aad la siisay inaad nagala qayb gasho barnaamijkan baan salaamaha waxaan halkan ka salaamayaa boqorka shanta Soomaaliyeed mustaqbalka dalka madaxweynaha insha Allah aan saasan rajeynaa waan ka maqnaa boqor taabid ayaan halkan ka salaamayaa boqor taabid ilaahay madaxweyne ka dhigo shanta Soomaaliyeed fataha Soomara Ilkacase kan Igu Sawir noo sheegay gudaha barnaamijkii damaashaadka ayaa intaas ku soo gabagabeynaya caawa waxaan si toos ah uga daawanaysay Muqdisho Cable TV sidoo kale barteena Facebook ee Radio Dalsan Cabdinaasir Socdaal Ilkacase bahda kaamiramanada iyo sidoo kale farsameeyaqaanada uu ka mid yahay farsameeyaqaankina faraha fudud Maxamed Cabdullaahi Boy waa inta markale aan kulmi doono dhamaanteen waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi shanta Soomaali hanolaato nabadgelyo laftigeela badda kuma baani gabaryahay bartayga joog badankii qalbigaada ma bogsiin karo bog iyo been baad ku barisataa hay bursan hay barin buqaygataa